waxyaabaha cajabta badan يعني ilmuhu haday meel fiican ku soo barbaaraan midaal baan idin tusayaa qaahira magaalada aanu joogo dalka Masar waa caruur yar yar la keenay oo magaalada wadanka Soomaaliya laga keenay Soomaaliyana dadka dumarkii way iska wada xijaabayeen soo dhayihiin haweenku wada xijaabayeen qof qaawan inaad aragtaay way yartahay xiliyadan dambe طيب marka wiil yar baa yimid oo taqriiban 5 jir 6 jir meelahaas waligii marka waxa Soomaaliya qofka dumarkii haday qaawan tahay waa qof waalan oo dharka dhigtay ku baraaruga yani qofka qaawan xiliyadan waa laga yaabaa ma garan karo laakiin xilligii ugu dambeysay qof dumar oo Soomaaliyeed oo isqaawisay ma jirin qof walba wax uu qabaa madaxeedana ma arkaysa laakiin waxa jira dadka arteen ee ku dhuftay iska waashay meelaha wareegay oo dharka dhigtay marka airportka markuu ka soo degay wiilkii yaraashin jirka ahaa wadamadan ee Carabtana way iska qaawan yihiin waa ku wanaan joognaa in badan oo kamid ah la mid yihiin markii laga reebo kuwa khaliijka marka wadanka markuu airportka ka soo degay ba wax ugu horeeyay oo indhaha ku dhuftay wuxuu ahaa islaan madax qaawan oo ordaysa airportka marka wuxuu yeeray hooyadii hooy islaantan waalantay buu islaanta waalanta marka waligii ma soo arkin marka ilmahaas ku koray halkaas oo kale ee waligii aan qof qaawan arag ee dugsiga gabadha jooga xijaaban tahay ee ilaahay xamdigii waxa arkay waxyaabo laga soo duubay Soomaaliya nin ee wanaagsan oo tagay oo adduunka muslimiinta ku wareega يعني Soomaaliya waxyaabo aad ka ugu amaanay xijaabka kale حتى wuxuu yiri oo ka marxaati ka qof dumara xitaa ilmaha yar oo dugsiga dhigta oo qaawan ma arkin bur illa qof walba dumar wax xijaabay wa bihamdillahi ayuha alhibba wa nimcada ilaahi in la xusuusto wa waxaan dad badan ayna inala qabino xitaa muslimiina ama dawladda Carbeed ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan marka inaan xifaadkaas ku dadaalo waajib ay inaga inoo tahay ayuha almusalluuna sallu